بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عشر كانوا حائنوغو بلابن دونا أخرين تحرفها أو شقلا. luqadda carabiga waxay qabtaa 4 shaqal oo kala ah kordhig, hoos dhig, godniin iyo reebniin. marka shaqal walba waxaan ku baran doonaa cashirkiisa insha Allah. haddaba maanta waxaan baranaynaa 7 xaraf ee alif waxmaalaha ugu horeysa oo shaqalka kordhiga leh. kordhig waa jiidin lagu qoro xarafka korkiisa sida aad wax yar kadib arki doontaan. waxaana fiican inaan u kala bixino xarafka shaqalka leh 2 qaybood. qaybta koowaad oo ah magaciisa iyo qaybta labaad oo ah dhawaqiisa. saana waxay naga caawin doontaa isku xirka hingaadooda ee mustaqbalka insha Allah. xarafkan hadda kadib ma dhahayna alif, waxaan dhahaynaa hamza. marka asiga iyo shaqalkiisa magacooda haddaan sheegno waa hamza kordhigan, dhawaqiisana a. saan soo sheegnay shaqalka kordhiga waa jiidin lagu qoro xarafka korkiisa sida aad ka arki kartiin xarfaha kulli. marka xarafka ku xiga hadda waa baa aan usoo baranay ama baa hooskaa leh. marka hadda waxay yeelatay shaqalka kordhiga. labadooda haddaan isku darno waxay noqone oo magacooda ah baa kordhigan, dhawaqane ba. taa kordhigan ta, thaa kordhigan tha, jiim kordhigan ja, xaa kordhigan xa, khaa kordhigan kha. mar labaad aan isla akhrino iyadoo oo aan sharaxad lahayn. hamza kordhigan a, baa kordhigan ba, taa kordhigan ta, thaa kordhigan tha, jiim kordhigan ja, xaa kordhigan xa, khaa kordhigan kha. cashirkeena intaas ayuu ku eg yahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.